السلام عليكم مالي وناكسن ciwaanka iyaga maanta waa calanka jaaliyadda cayrta sidii dadkii hore bixilligii nebi aadam ay u ahaayeen hal ummad ay ku midooda luqadda caqiidada iyo abtiriska kadib markay farbateen ay ku kala tageen dunida ayaa Soomaalidu waagii hore waxay ahayd hal ummad oo ku midaysan caqiidada luqadda iyo abtiriska balse markuu dhacay gumaadkii xasuuqa dagaaladii sokeeye ayaa kumanaan waxay u qaxeen dibadda halka ay ku tarmeen oo ku bateen deedna waxa bilaabatay isufaanida abtiriska midba uu kan kaga dhow yahay koox kasta markay timaado qurbaha ayaa waxay bilaabaysaa inay barbaarto qof Soomaaliyeed meelaha ay imaadeen ka dhow yahay balse muddo kadib markay helaan Soomaalida ay raadinayeen ayay ka sii dhaxbaaranayaan qabiilka iyaga u dhow ay ka tirsan yihiin sidaas darteed ayaad waxaad arkaysaa magaalooyin gaar ah ay ku dhex yaalay qurbaha inay ku jirto xaafad u gaar ah Soomaalida uma gaar ah balse iyaga ayaa wada degay muxum inay wada degaan balse israadsigaas isku soo dhawaashadaasi waa mid xagga kore laga arkayo kholof ah ay xagga gudaha ku kala fog yihiin qabiil is aruursigii ayaa bariyahan dambe wuxuu yeeshtay astaan calan waxaad arkaysaa hal magaalo gudaheeda inaad ka dhex heli karto jaaliyado calaamado kala duwan wato oo magaca Soomaali sheeganaya balse qabiilaysan sanad kasta waxaa la qabtaa xafladooyin sanad guuriyo gaar ah oo gaar ah qabiilada qaar oo xaflad walba aad arkaysaa calan gaar ah oo ka rafrafanayo isu imaatinkaas la qabtay mararka qaarna waxaad arkaysaa qaaraan qarsoon in la aruurinayo qabiilada qaar ay aruursanayaan si loo kaalmeeyo qof ka tirsan qabiilkaasi ileen dadku wax aruurinaya calanka ay sitaan ayaa mid ka duwan midka ay dadkan ay aaminsan yihiin marooyinkii kala duwanaa ayaa waxay noqdeen muqaddas jirkii midabka gaarka lahaa ee ka wada mideysnaayeen ayaa la iska tuuray xaafad walba ayaad ku arkaysaa calamo xidigaysan aan hal xidigna ka iftiimaynin calanku waa astaan tilmaamaysa ujeedo gaar ah ee dadka samaystay ay ka leeyihiin sidaas darteed ayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu calan siin jiray marka uu diray ergo si ay diin u faafiyaan ama ay joojiyaan dad xumaan wado markuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam cali bin abi talib u diray Yemen ayuu yiri waxaan siinayaa calankaan berinin ilaahay iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin isagana jecel yahay Soomaalida ay u fahantay calanka inuu yahay astaan lagu aruurinayo qabiilka sidaas darteed ayaa qabiil walba wuxuu leeyahay calan u gaar ah uu la soo shirtago sanadkiiba mar xaflad iyo sanad guuran uu qabto hadday gudaha wadanka ku leeyihiin xafiis u gaar ah qabiilada qaar iyo calankooda qurbahana waxaa jirto jaaliyada gaar ah oo calan wadato oo hab qabiileed u shaqaynayso iyagoo doonaya awoodooda qabiileed iyo calankooda inuu ka soo dhex muuqdo bulshada si loo muujiyo awoodda jaaliyadda qabiilaysan ayaa waxaa bilaabatay jaaliyadii dhaxdooda inuu tartan ka dhex dhaco ay mid walba doonaysa inay iyada gacanta ku dhigto maamulka iyo maareynta arrimaha Soomaaliya oo magaca Soomaaliya lagu qaraabanayo balse jaaliyadda ay tahay mid qabiilaysan ileen dawladaha Yurubta ama reer galbeedka ayaa waxay siiyaan ceer ama kaalmo ururada jaaliyadaha Soomaalida balse uma siiyaan hab qabiilaysan kaalmadaas iyo ceertaas si loo helo ayaa waxa ka dhaxdhacayso dirir iyo dagaal ishaysi si gacanta loogu dhigo maamulka ilaa ay gaartay heer in lagu kala tartamo gacan ku dhigida maamulka masaajidaha qaar iyo in hanti laga helo sida labada ogsoon yahay oo ka dhacday badalka Norway qof ka tirsan qaraabada ayaa wuxuu weydiiyay inaan ka keeno jaaliyadda wadanka aan ku noolahay saxiix ay saaraan warqad wakiilasho oo isaga loo dirayo balse waxaan ku yiri jaaliyada noocaas oo Soomaali ku shaqeyso magaca Soomaali danteeda ilaalinaysa ma jirto saxiix noocaas kalena lama heli karo wuu yaabay waxaan ugu kordhiyay kulanka dadka ku nool meesha aan jooga ayaa ah mid ku kooban qura marka tabarucaad loo aruurinayo qof markuu dhib soo gaaro labada maalin ee la qiiraysan yahay la dhaho maalmaha wadaniga ah ama laga yaabay qabiilada qaar inay si qarsoon u shiraan iyagoon u ogoleen dad aan calankooda ka tirsaneyn inay soo dhex galaan ama kuwa kale iyaga ayaaba diidanba inay ka qayb galaan calan aan ahayn calankooda dadka waddan ku nool ayaa u malaynaya jaaliyadaha Soomaalida ee qurbaha ka jira inay yihiin kuwa midaysan oo danahooda ka wada shaqeeyo si cadaaladaysan oo garsoor leh ilaan waxay arkayaan wada hadalka tooska ah iyo midka aan tooska ahayn ee Soomaalida ka dhaxeeyo markii caruur laga bato ama markay ka soo qayb galaan janaaso qof dhalinyaro oo la dilay dadka isku mid maahan waxaad arkaysaa jaaliyad ama jaaliyado oo dhif ah ay daacad ka tahay ishaysiga iyo kulanka iyo ku shaqaynta magaca Soomaalinimo iyagoo ka fog qabiilka si cadaaladan ugu shaqaynayo dadka ka tirsan jaaliyadaasi balse inta badan ayaa ah jaaliyada ku shaqeeya magaca qabiil haddaad doonaysid inaad ogaato dhabnimada jaaliyadaha ka jirto qurbaha waxaad ku laabataa qura maalmihii ay iclaamiyeen labadii dhalinyarada ee caanka ku ahaa baraha bulsho gaar ahaan ku tartamaya barta TikTok iyagoo adeegsanaya magaca qabiiladooda dadkii daawanayay oo daawadayaashooda ka mid ahaa ayaa waxay u kala jabeen oo ka kala safteen qabiilada ay ka soo jeedaan ilaan waxaa wax taabtay maasadii qabiilka mid walba wuxuu ku soo baraarugay si u gargaari lahaa astaantiisa calan tolkan u garabsiin lahaa taasina waa midda ka jirto jaaliyadaha qurbaha calan ciil lagu qoray cid kale baa u cad maalin wanaagsan salaamun calaykum